walaalayaal maanta oo khamiis ah bisha soonfurna ay tahay 29,442 waafaqsan 10ka bisha 6aad 2021 waxaan dhex taagannahay masjid al-nuur oo ku yaala degmada Wardhiigley xaafadda Shilinta walaalayaal sida idiin muuqata waxaa la shubaa maanta masjidka qaybtiisii hooso derbiyadeedii ayaa la shubayaa sida idiin muuqata waxaan rabaa marka anigoo ku hadlaayo guddiga masjidka magacooda anoo ku hadlaayo waxaan rabaa in aan idinla wadaago baahida masjidka qaybtiisa hoose walaalayaal masjidka wuxuu u baahan yahay shamiito ilaa 1,500 kiishki shamiitada waxaa la gadaa $7 iyo bar 1,500 $7 iyo bar haddii lagu dhufto waa 11,250 waxaa bixi kara hal qafood oo muxsin ah wuxuu kaloo u baahan yahay masjidka macnaha qaybtiisa hoose carada la yidhaahda cara shubeed ilaa 20 kaariko kaarikadii waxaa la gadaa $70 70 marka haddii 20 lagu dhufto waa $1,400 wuxuu kaloo u baahan yahay masjidka bir waa birta shubka ilaa 220 kiintaal halkii kiintaal waxaa la gadaa $90 220 marka haddii lagu dhufto 90 waa 19,800 wuxuu kaloo u baahan yahay masjidka jaay ilaa 40 kaariko halkii kaarika waxaa la gadaa $170 40 marka haddii lagu dhufto 170 waa 6,800 baahida hadda taagan oo u baahan yahay masjidka qaybtiisa hoose derbiyadii iyo ilaa salootadii waa intaas waxaan muxsiniinta ugu baaqaynaa in masjidka ay u furaan akoonnadooda iyo jeebabkooda waxaan muslimiinta ugu baaqaynaa in masjidka ay ka qayb qaataan waxaan ku boorinaynaa wanaagga iyo sadaqada iyo wax la bixidda inay dadku muslimiintu ay aad iyo aad jeebabka ugu furaan waxaan leenahay walaalayaal aan ka mid noqonno kuwa ilaahay yidhi facasaa ulaa'ika an yakuunuu min almuhtadiin rabbulciza subxaanahu wa tacaala markuu ka soo sheekeeyey dadka masjidka camira sifaadka ay leeyihiin ayuu rabbulciza wuxuu ku dabamariyey jalla culaahu facasaa ulaa'ika an yakuunuu min almuhtadiin dadkaas masjidka camira waxaa xaqiiqo ah inay dadka hanuunka qaatay ay ka mid yihiin idan marka qofka masjidka ka qayb qaata sida rabbulciza subxaanahu wa tacaala uu u qiray waa dadka muhtadiinta ah ee hanuunka ka qayb qaatay oo hanuunka qaatay ayuu ka mid yahay qofkaas rasuulkayna sala allahu calayhi wasalama waxaa laga wariyey xadiidkii ibnu maajah xadiidkaas nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay man banaa masjidan lilaah qofka ilaahay dartiisa u dhisa masjid ka mafxasi qadaatin aw asqara nabad intay fadhiisato ama wax ka yar oo masjida qofka ilaahay dartii u dhisa bana allaahu lahu baytan fi ljanna waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu uga dhisaa jannada guri xadiidkaas macnihiisa ayaa culimmadu ka hadleenoo waxaa la yidhi wa haadaa liifaadati almubaalaqati fi siqar macnaa xadiidku waa mubaalaqa wuxuu sheegay wailaa fa aqalu lmasjidi laa yakuunu ilaa mawdican lisalaati alwaaxid qofka masjid sidiisa waxaa ugu yar inta hal qof ku dukado dhabad meesha ilma dhigatana qof kuma duka karo idan xadiidka culimmada qaar mubaalaqay ku xambaareen culimmada qaarna waxay dhaheen daahirkiisaaba xadiidka lagu socodsiiyaho waxaa la leeyahay qofku markii uu masjid ziyaado yar uu u baahan yahay dhabad intay fadhiisato ilma dhigataba allaha ka dhigo oo masjidku baahi u qaba qofkii ku dara ayaa macnaha nabigu ka hadlaya sala allahu calayhi wasalam amaba waxaa lagu fasiri karaa in dad badanoo isu tegayo masjid ay isla dhisaan taasoo qofka keliya qaybta uu bixiyayo ay markaas la ekaa karto ama ka yaraa karto inta dhabad ay fadhiisato saa darteed nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu nagu boorinaa
inaadan waa yar yihiin isdhihinoo baydka ilaahay aad wax ku darsato haba kuu yaraadaan man banaa masjidan lilaah qofka ilaahay dartiisa u dhisa masaajid ka mafxasi qadaatin aw asqara dhabad intay ilma dhigato ama wax ka yarba qofka ilaahay dartiisa u dhisa oo masaajida banallaahu lahu baytan fi ljanna qofkaas ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa u dhisa guri janno ha kuu yaraadaana ha kuu badnaadaano walaal ka qayb qaado masjidkan waa sadaqa jaariya ka qayb qaado wasalaamu calaykum waraxmatullahi